qofku ka sareeyo ama ka magac dheer yahay ayuu ilaahay kaga dhow ka aamin fanaanka caanka ah Maxamed Siciid Biike oo dhawaan muuqaal soo galiyay baraha bulshada ayaa sheegay in qof walba qofka uu ka magac weyn yahay isla markaana uu ka sareeyo oo alla uga dhow yahay arintaas ayaa aad u qabsatay baraha bulshada waxaana dadyowgii kala duwanaa ee fikrada kala duwan ka dhiibtay ay badankoodu sheegeen in hadalkaasi yahay mid gafa isla markaana uu fanaanku u gafay shareecada diinta islaamka haddaba arintaasi iyo waxa ay diinta islaamku ka qabto waxaan wax ka weydiiyay Sheekh Cabdiraxmaan Dheere oo kamid ah culimada waaweyn ee Soomaaliland waxaan uu tilmaamay inuu hadalkaasi ahaa mid gafa hadalka sharciyan hadaynu ku eegno ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inoogu sheegay qur-aankiisa kariimka ah asbaabta ama arrimaha agtiisa lagu karaamada yeesho ama ilaahay loogu kala dhow yahay ilaahay wuxuu inoogu sheegay inay tahay alla ka cabsiga iyo toosnaanta lagu toosnaado awaamirta ilaahay iyo awaamirta nabiga sallallahu alayhi wasallam allah qur-aankiisa wuxuu ku yiri inna akramakum inda allahi atqaakum ilaahay agtiisa waxa idinku sharaf iyo maamuus badan oo idinku karaamo badan kuwa idinku alla ka cabsiga badan buu ilaahay subhanahu wa ta'ala allah ma oran kuwa idinku magac dheer leh kuwa idinku caansan ilaahay ma oran wuxuu ilaahay noo sheegay sida loo kala alla ka cabsi badan yahay ilaahay loogu kala dhow yahay subhanahu wa ta'ala waxa kale nabigu noo sheegay sallallahu alayhi wasallam ilaahay ciddu jecel yahay inaanay marar badan ba inaanay noqon xataa dad la yaqaano nabigu wuxuu yiri inna allaha yuhibbu al-'abda at-taqiyya al-khafi ilaahay wuxuu jecel yahay buu nabigu yiri adoonka ilaahay ka baqa ee iska qarsoon dadku waxa taade doonayay aqoonaanin yaanu caan ahaanin yaa la garanin laakiin ilaahay ka baqanaya iskana qarsoon oo cidba aanay garanin buu ilaahay u jecel yahay subhanahu wa ta'ala adoonka waa jecel yahay marka yaana waxa weeye caannimada iyo qofku inuu soo caan baxo ama magac yeesho ama bulshada ay markaa wada barataa uma aha base iyo sabab iyo saldhig uma aha inuu ilaahay jecel yahay subhanahu wa ta'ala marka hadalkaasi waa hadal qaldan haduu uga jeedo qofka ilaahay uu jecel yahay umada ilaahay u dhaxdhiga qabuul taasi waxa weeye waa hadal sax ah oo nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu sheegay ilaahay markuu adoon jeclaado wuxuu u dhawaaqaa jibriil oo hebel waan jeclaaday adiguna jeclow jibriil malaa'iktu u sheega ilaahay hebel waa jeclaaday idinku jeclaada malaa'igtuna way jeclaataa dabadna arrada waxa loo dhigaa nabigu qabuul iyo aqbali macna dadka ilaahay oo dhan ba raali ka noqday intooda badan yaana waxa weeye marka amaan ba dadka loo dhaxdhiga hadalkaasi yaana rasuulku sallallahu alayhi wasallam uu tilmaamay macnihiisu waa saas ama in la yiraahdo qofku ka caansan yahay ama ka magac dheer yahay ayuu ilaahay xaqiisa uga dhow yahay hadalkaasi sax maaha waxaan ognahay dad badan oo caan ah oo haddana ahlu naar aha Abu Jahl baa kamid aha Abu Jahl yaana maka iyo hareeraheeda ama carabi nin ay magaciisa wada taqaan oo magac dheer ayuu ahaa Abu al-Hakam baa loo oran jiray yaana oo carabi u taqaanay hadana maca dhalik wa min ahli an-nar sida ilaahay inoogu sheegay quraankiisa subhanahu wa ta'ala marka fircawn waa garanayna dadku dhan way yaqaaneen hogaamiye oo hadana ahlu naar marka ruuxa uu magac dheer yahay ama bulshada taqaan macna kuma sameynayso ilaahay agtiisa waxa karaamo iyo sharaf qofku ku yeelanaya ilaahay inuu ka baqo subhanahu wa ta'ala shariicada ilaahay ku toosnaado marka hadalkaas hadal sax ma aha waa hadal qaldan sida marka uu qofkii yiri uga jeedana waxa weeye hadii ay tahay uu islaha waxa tiraahdaa sida yaana qofka ilaahay markuu jecel yahay dadkiisa ayuu u dhaxdhigaa marka yaana sumcad iyo hadal wanaag iyo marka amaan wanaagsan taa sax bay ahaan lahayd laakiin hadalku sida imka uu yaalo waa si qaldan weeye geesta kale Sheekh Cabdiraxmaan Dheere ayaa fanaanka u soo jeediyay inuu hadalkaasi uu sixitaan ku sameeyo qofkii hadalka yiri waxaanu leenahay hadalkaaga dib u hagaajiyo u sax hadii macna sax aad uga jeeday qofka ilaahay jecel yahay arlada ilaahay qabuul u dhiga hadalkaas sida uu yahay nabigu uu yiro kala u dheh laakiin hadalkaaga sida aad u tiri hatta dad macna sax uga jeeday adigu waa hadal khaldan isagana waxaan leenahay hadalka dib uga noqo dib u sax waxaana tiraahdaa qofka ilaahay subhanahu wa ta'ala uu jeclaaday samada uu ka jeclaado arlada ayaa ilaahay qabuul u dhiga subhanahu wa ta'ala hadalkaas sidaas aan ugu saxayna sharciyan sidaas saxayna tiraado ama hadalkaaga hore ah sida loo kala magac dheer yahay ee loo kala sumcad badan yahay ama loo kala caansan yahay baa ilaahay loo kala dhow yahay hadalkaas hadal sax ma aha Liibaan Cusmaan Ali Television Kariel Hargeysa gabadh muslimada Soomaali ah oo Congress-ka Mareykanka ku jirta ayaa kelimo sax ku hadashay Israa'iil oo xadgudubka la arko wada sida ay Mareykanka dhaqaalihiisa uga faa'iideysanaysay hal taqriido yar ka qortay Mareykankii waa kacay mana fadhiisanay madaxweynihii waa kacay ila loo fagaareeyay gabadhaas
iyo madaxweynihii dhanaaya dalka labadii xisbiba waa kaceen wadanka ka tirsan jiray dimuqraatiga iyo jumhuurigiiba waa kaceen gabadha yarta la dagaalamaya xaqiiqay sheegtay markaas waxa la leeyahay hal isxasisho hal eriyo leesh boqolaal madow markii la laayana macna male masaajida muslimiinta marka la galana macna male madaxu ka jiray wax ka soo qaad male risaaladaasi waxay ku socotaa qaar badan oo inaga mid ah oo ay cajab gelisay reer galbeedku oo ay la qumanaatay thaqaafada reer galbeedku oo u qaatay adduunkii inuuba ku dhammaaday thaqaafada reer galbeedka oo liberaaliyiin iyo cilmaaniyiin ah oo najiidayo noo jiidayo inaan reer galbeedka ku dayano iyo dhaqamadooda akhlaaqdeenna iyo dhaqankeenna iyo hiddaheenna iyo waxeenina aynu ka tagno risaaladaasi waxay ku socotaa fasira waa idin kale dadka ha lagu dayda reer galbeedka noo fasira maxay yihiin waxyaalaha noocan dhacdooyin nin walba akhrinaya waay maanta wax qarsooni ma jiro intaa kadib rasaa'il dhowr ah ayaan doonayaa inaan muslimiinta u gudbino khaasatan muslimiinta aqaliyaadka laga tiro badan yahay dhulalka gaalada ku nool qodobka koobaad waxa weeye risaalada koobaad waxa weeyaan diintiina ku sugnaada aqeedadiina ku sabra wixii dhacaya ha dhaco halaydinku dilo laana waa la wada dhiman geeridu waa xaq laakiin inaad tawxiid ku dhimato iyo inaad gaalnimo ku dhimato farqigu intaas waay inaad dhimato adoo tukanayo lagu dilo waa shahaada waa dhimashatii ugu qiimo badnayd waay ruuxa muslimka ah haddii diintiisa loo dilo oo caqiidadiisa loo dilo oo akhlaaqdiisa loo dilo xataa gogashiisa iyo gurigiisaba ha lagu dilay waa shahiid ilaahay baan uga baryaynaa tabaaraka wa tacaala inuu shahaadadooda aqbalo muslimiinta la leeyahay nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaa ka sugan isaga iyo saaxiibkii abubakar iyo cumar iyo cuthmaan baa waxay fuuleen buurta uxud ayagoo buurta korkeeda saaran ayay buurtii dhaqdhaqaaqday way gilgilatay way ruxatay markaasaa nabigu sal alla alay wasalam buurtii la hadlo wuxuu yidhi uxudow dhaqdhaqaaqa jooji waxaa ku dul saarani waa nebi iyo sidiiq iyo laba shahiid waay nebiga garanaya صديقنا قرنا وابو بكر لبدا الشهيديه وعمر يا عثمان رضي الله تعالى عنهم اجمعين عمر waxa lagu dilay magaalada Madiina asagoo jooro furin dagaal lagu ma dilin asagoo muslimiinta tujinaya masaajidka nabiga sallallahu alayhi wasallam baa la dhaawacay kadibna sidaas uu ku dhintay radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa wa ma'a dhalika nabigu wuxuu uga marxaati kacay inuu shahiid yahay عثمان sidoo kale magaalada Madiina lagu dilay oo qolo kacdoon samayso khawaariji balaaye kharibana baad dishay magaaladii nabiga lagu dilay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi asaguna furin dagaal lagu ma dilin